السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال haddaba maanta waxaan idin hayaa arrin in badan la wada raadinay. Arrintan waxay ku saabsan tahay sidii aad WhatsApp-ka qof aad wax ugu dirtay uga delete garin lahayd. Tan macnaheedu waxay noqonaysaa haddii aan idin yar faahfaahiyo iminka kale qof bad WhatsApp-ka sawiraan ugu dirtay ama qoraal baad u dirtay kabacdi mobilkii ayaa laga xaday kadib waxaad ka cabsatay sawiraantaadii iyo qoraaladaadii in la akhriyo. marka aad qofkaasi uu ku soo sheegay in laga xaday mobilkii adiga ayaa xadidi karaya oo ka delete garan karaya wixii aad qofka u dirtay wixii sida ugu jiray lama jeedo laakiin wixii aad u dirtay ayaad ka saaraysaa. marka daawadayaal arrintan waa arrin dad badan ay raadin jireen wallahi run ahaantii waa la soo weydiin jiray in fara badan ma jirtaa si looga delete gareeyo qof aad wax u dirtay. marka daawadayaal videogan ayaan maanta ku hayaa ee ka faa'iideysta. marka daawadayaal haddii WhatsApp-kii caadiga ah uu kugu jiro kuma shaqaynayso waa inaad soo dejisataa WhatsApp-ka aan linkigiisa videoga ku dhigayo magaciisana la yaqaan GB WhatsApp waa wada maqashay ayaan u maleynayaa laakiin sirtan ku jirta ma aydun maqlin ayaan filayaa. marka daawadayaal markaad WhatsApp-ka la soo degto marka aan videoga aynu bilownay ila soco. marka daawadayaal markaad soo dejisato WhatsApp GB markaad soo dejisato oo ah kaimka idin muuqda kabacdi marka waxaan idin tusi doonaa sida aad uga delete garanayso. marka daawadayaal markaad soo dejisato ugu horreyn sidaas ayaad gudfanaysaa. marka iminka kale qof ayaad rabtaa inaad ka delete garayso message aad u dirtay amaba group ayaad rabtaa inaad ka delete garayso message aad u dirtay. marka iminka inankaas oo kale ee ku qorantay Cadnaan Faysal ayaan sida ugu xajinayaa message-kaan u diray ayaan sida ugu xajinayaa. markaan sida ugu xajiyo kadib waxaan ku dhufanayaa halka saddexda dhibcood ee halka sare ayaan ku dhufanayaa optionska kabacdi waxaan ku sii dhufanayaa halka qoran tahay recall kadib recall ayaan ku sii celinayaa. waad aragtaa you recalled this message ayaa ku soo qormaysaa qofkii kale ee aad message ku dirtayna waxaas oo kale ayaa u soo qormaysaa oo this message was recorded by someone ayaa u soo qormaysaa. marka sidaas ayaad ku waaysaa haddii imka sawir macal tusaale ahaan sawir oo kale aad u dirto sawirkan isagana waad ka saari kartaa. iminka kale inankaas ayaan sawir u dirayaa kadib sawir aliyaali sawirkan doona ayaan u dirayaa sawirkaa baan u diro kadib waad aragtaa uu wareegayaa intaasaa ugu biyo ayaan sidaa ugu xajinayaa kadib waxaan kusii dhufanayaa laakiin iminka maan dirin weli markuu dirsamo ayuunbad record garayn kartaa. marka daawadayaal aniga WhatsApp kale imka iguma jiro idinka ayaa tijaabin doonaa. arrintana waa arrin loo wada baahnaa oo in badan ay ku hamin jireen dadka WhatsApp-ka isticmaalaa. marka haddii maanta aad faa'iidada ka faa'iiday oo aad heshay wixii aad rabtay fadlan like saar videoga sidoo kale haddii aanad channelka hore subscribe saarin subscribe saar. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبلكي دعي كورها بين قري إيمان هاي سيدي قبلكي دعي كورها